ninkii soo galaba waxaan arkaa warjidka waan ka hadalnaa laakiin ballan maanta adaa noo qaaday ballanta adaa noo qaaday waana noo suubisay Maxsuuma Cabdi Cali wuxuu noo ballan qaaday tacliinta intuu soo galo inuu fili nooga dhigi doono uu suureeyay uu ka dhigay wuxuu noo ballan qaaday Sangailo intuu soo galo inuu secondary school wax looga dhisi doono intuu soo galay uu suureeyay Sangailo secondary uu noo dhisay wuxuu ballan qaaday xafiisaha kamid ah oo aad u dhib qabnay muxuu ahaa wax qabadkiisa oo dhiyo ama chief Sangailo ka maqnaa yuu ballan qaaday uu suureeyay uu dhisay maanta wadadana ballan qaadnaas ay kamid ahayd maanta iidaan dhex taaganay ورحمة الله تعالى وبركاته. هالكن أنت جانا هاي وماشي ماركتي لده ريبي كلبحي ورا بالي ريبي ووضد ماركت بحيث رمي يسنجايلو وهذا مشروع صبحي مشروع عبد علي عبد الشيقو لقى قبتي ماشي قداش يدم حتى جن مسؤولينتي ماركت سنجايلو ديفيشن وكمية هاي سنشيف قدلون سنشيف متاربة سنشيف سنجايلو سينا شيف قدلون وأنا أفكار هذا كهذا يا ومارس شيء فش مسألة يو أضياش السماوات الأودجان كسنجايلو ديفيشن ودادن وودا هالبولة وهو مارت مدة السماوات الأردن والله ده وقتي جل جارو جيلالك ماشي هودك الله قدام بيع بيها كرسة توي يحولها مارت اللي جمار مين الحمد لله مشروع صبحي شن 8 كيلومتر وجريدينجه يو لحية 8 وبشكلين هي لسه هذا مشروع أضياله كل قدام بيان حنوشيجينا عدسي عن مارت عن بحسنينا أنا مسؤولين تأه أضياشنا نوكا من السماوات هذا ماشي ككوان ودادي إني ماركتي وحنا نقول كرديو ما تنتهى بقولك عبد علي شيقو وحيا لبلانتي نو قاتي وانو سو وفلسي نيكي سو قالوا waxaan arkaa warjidka waan ka hadalnaa laakiin ballan maanta adaa noo qaaday ballanta adaa noo qaaday waana noo suubisay waana ku mahadsanta wax yar noogu dhiman waxaas yar aan rabnaa haddana aan ka bariyay inay oo haduu ilaahay diidin noogu darto bismillaahir rahmaanir rahiim meesha hadda aan taaganahay waxay wada kulli aan maqasheen darin tagayso Sangailo ka baxayso wadada dhaxqaato aadna way wada aan qabnay meesha aan taaganahay hadda waa meel wadada dhaxdeeda darintina wali ma ay ku bixin oo kulli ilaa dhowr kiiloomitir ayaa wali darinta ka sii dhiman wadadan waxaan u maleynay sida hadda ninka igu horreeyay uu dhahay wadadan marba waxa jirta geedo wax yar laga gooy laakiin waxa wax naafi lama heen waxay ka soo baxday hadda sidii hadda aad arkaysiin sida magaalada bay ka soo baxday wadadii wuxuu ahay roodkii wuxuu ahay Sangailo isku xir jiray iyo haluuqo ilaa isku xiray weynaa iyo wadadan ka soo dhaqaaqaysa meel bartamaha badada ana waan taaganahay hadda waxayna kamid ahayd ballanqaadkii maxsuuma Cabdi Cali Cabdi ballamihii uu qaaday ayaa kamid ah wadadii inuu qoraayo ballamihiisa kamid ah maxsuuma Cabdi waxyaalo ballan badan uu qaaday oo uu oofiyay badan dadka waxay dhahaan ruuxa marka islaamka uu yahay hantuuba ballan balahayn waxa la waa munaafiq marka hantuu ballan oofiyo uu noqdo maxaan dhihi karnaa waxaan dhahaynaa marka qof islaam inuu yahay marka haduu wuxuu ku tilmaamay maxsuuma Cabdi Cali inaan dhihi karno qof islaam waayo oo ballamihii uu qaaday badi uu oofiyo wixii kulli bartamihiina u sii socdaa ballamaha waxa kamid ahaayeen ballanqaadkiisa maxsuuma Cabdi Cali wuxuu noo ballan qaaday tacliinta intuu soo galo inuu fili nooga dhigi doono uu suureeyay uu ka dhigay wuxuu noo ballan qaaday Sangailo intuu soo galo inuu secondary school wax looga dhisi doono intuu soo galay uu suureeyay Sangailo secondary uu noo dhisay wuxuu ballan qaaday xafiisaha kamid ah oo aad u dhib qabnay muxuu ahaa wax qabadkiisa oo dhiyo ama chief Sangailo ka maqnaa yuu ballan qaaday uu suureeyay uu dhisay maanta wadadana ballan qaadnaas ay kamid ahayd maanta iidaan dhex taaganay oo ka soo dhaqaaqtay Sangailo
meel waxaan u malaynaya dhalim ilaa 8 kilomitir dadka aad u qaan aniga badada saas ma soo ilaa 8 kilomitir 7 kilomitir wax saas ma dhahan mise way ka badan doon u jirto ayaa hadda taagan dharim inta hadda loo dhiman maashay yani inta aan soo qornay oo hadda ay soo martay inta aan soo qornay kulli kilomitir maxaa la sheegay hadda 31 kilomitir ilaa la soo dhameeyay laakiin dharimta waxaa nala dhiman weli ilaa 8 kilomitir ilaa 7 kilomitir wasaas hadda ay dadkii ay aqoonta lahayn ay sheegay cusmaan cabdi waxaan ka codsanaynaa maadaama oo jidkii maanta aan taaganahay oo kana arkaysiin uu yahay inta inoo dhiman oo dharimta inuu noo suurageliyo oo noo dhameystiro waan ka codsanaynaa magacayga waxaa la yidhahdaa madar aadan cali inta odayaasha iga horreeyay aan udhaadi marka ma dhimay buu mahadsanyahay madaxweynaha cabdi cali wadada uu noo qabtay shaqada uu noo qabtay waa shaqo aad oo muhiim ah waa halbowlaha dhihi karaan waayo halbowlaha waxay ku tahay barbax markuu dhaco uu diirka caddaado xoolahayna maxay galaan dharimay galaan meel aan u marno waan la-een middaa ida uu qabtay waa mid halbowle ah waa mid uu ku mahadsanyahay madaxweynaha cabdi cali taagan hadda maxaa la lahaa meeshii waraabaan iyo reebida wadada kala goynaysay madaxweynaha cabdi cali xaaji sheekhow we highly appreciating him noo hagaajiyey waana ku mahadsantaa waxaana ka codsanaynaa halaha inoo dhiman 25 kilomitir ayaa ka dhiman ayadana insha allah inuu intaas inoogu daro intaas aan codsanaynaa walaalayaal arrinta aan geedkan meeshan u maanay waxaa waa jidka waxaan u soo kacnay jidka wadadan waaye wadada haddaan soo aadnay oon meesha ku dhammaanaysay aan tagnay oo tengayaha geeyeen waan faraxnay aad iyo aad aan u faraxnay aad hadda mahadcelinta waxaan ku mahadinaynaa cabdi cali waan ku mahadinaynaa maxushmiya waxaa kale oo isla fiirina oo talada ay hadda nin walba sheegahay intii noo dhiman iyo intii aan soo marnay inay isku mid yihiin marka intaa kale nin walba codsanahay egenay waxay macaanaatay meeshii wax yaraa noo dhiman nin walba wuxuu sheegahay inay halaha yar noogula daro cabdi cali waan u mahadcelinaynaa waxaa kale oon annagaan codsannay sukurdheri waa noo qabatay waa noo dhistay jidkii waad bilowday oo hadda waad noo suubisay annaga waan mahadcelinay marka samwadal baan nahay inta sartageylu baan nahay ogaasyadii kudi waa kuwan jiifadii waa kuwan marka intaasaan ka kooban nahay annaga warkaanagu waa sidaas warahmatullaahi wabarakaat aniga magacayda waa xasan baaruud dhammaan meeshan aan imaanay waxaan ka tirsanahay odayaasha soomadal deegaanka Sangailu iyo jiifafkooda waxaan meeshan u imaanay wadadan iyid oo ka baxdo waraabal aadina dharib uu noo qoro hadda MB-ga madaxweynaha cabdi cali midda koowaad waxaan rabnaa mahadcelin ayaan u dirhaynaa MB-ga waayo wadadan waa wada aan waqti badan aan ka hadlaynay una dhibisnay markii ameen kale oo kale la gaaro wadiirka uu sii cadaado jiilaan la bilaabo meesha kaliya anaga aan xoolaha aan gashano waxa way dharin dad iyo dunyaba xaqan aadna waxa dhacda mar kasta ma aragta dad ku jirana ama ugaarti ma aragta oo bahalaha duray meel la soo mariyana waan wayni ilaa oo kareeta ahto aan qaadano ma aragta aan ku keenno dad dhaawac oo ama jiran ama ay ma aragta gasi iyo wax ay dureen dhibaato fara badan ayaan qabnay codsi badan aan geysanay laakiin wax noo suurtagal ma jireen codsigan uu maarta uu noo qaaday iyo balanta uu noo qaaday sanadku uu soo galay balanta uu qaaday uu oofiyay magacaygu waa Bashiir Siyaad aadan Fawma Kansala Sangailu waxaan taaganahay wadada jidkii noola qoray oo noo qoray madaxweynaha sida hadda uu chief uu sheegay baahida hadda way sii horeysaa meesha hadda noogu darneed oo baahida hadda way horeysay inta waa intii hadda maarata oo noola qoray oo maarata hadda laga dhigay haaweyn marka jidkan magaciisa waxa la road sheeqow intii horaan lagu hadlo baan u dhaadi wadadan waxa u maleeyay dib badan loo qabay ballanqaadka waxay ka bilaabatay 202 bari waxa soo galay meesha intaas aan ballanqaad aan la qaaday alxamdulillah wuu ku mahadsan madaxweynaha cabdi cali wadada waxa u maleeyay waxa la qoray 32 kilomitir 16 waxay ahayd firis oo mushkiliyani 15 waxay ahayd grading marka wuu ku mahadsan yahay wadada waxa nooga dhiman 25 kilomitir in aan ku qaasay meesha aan rabnay dharin la dhaho aniga waxaan ahay nin fitnar u shaqeeyo in badan waxaan maray dharin waan aad intaan alaabtayda qaataan lo ku soo duray rafaad badan ayaan u marnay lugays baan ugu dhacay hadda laakiin waxaan filayaa
haddii 20 kilomitir loo qoro waxaan u malaynaa waa dhibka waa baxay caanihii xoolihii meesha laga soo teelaa laga keenaa warahmatullaahi wabarakaatuh meeshan iskugu imaanay maxaan u malaynaa waa reer Sangaalu wada uu qoray muxushmaha nasu siiyay oo la qoray aan daba soconay meeshay ku reebantay waan gaarnay waa waraabal iyo reebay dhaxdood meel qashin cadaha la dhaho baahidii wadadaas loo qoray saak maxaan u malaynayaa aadan ugu farax qabnaa laakiin in yaraan noo dhiman intaas noo dhiman waa 20 kilomitir 20 kilomitir haday naga baxdo waxaan u malaynaa baahida dharin way bogsatay muxushmaha horaan noo ballanqaadku uu fuliyay waan u mahad celinhaynaa 100% haddana waxaan ka codsanaynaa halahaas asiide inuu naga tuuro oo wadadii had xoolahayn dharin ma jiraan xagga ay fadhan had saacadan meel loo marano waa uleen marka baahidaas iide halahaas ka dhiman halahaas muxushmaha waxaan ka codsanayn asoo 100% mahadsan haddana inuu naga dhamaystiro